anoo gurigeena iska joogno ayaa gabadh baa jirtay saaxiib ahayo maamadeyda ingiriiska kasoo laabatay dabeedna waxay timiday wallahi inaan been sheegin that's true familkeena soo booqatay ingiriiska kasoo laabatay maamadeedii la fadhiday shaah la cabaysay kadibna wax uga sheegsay waxay tiri wiilkaygii waa lasoo baxsaday ana meesha agtoodaan joogay markaas bay ku dhahday maalmadeydu maxaa wiilkaaga la soo baxsatay markaas bay tiri nin baa ii yimi oo iguri wiilkaaga isii markaas maamadii yaabtay tiri maxaa dhahday waxay tiri nin baa yidhi wiilkaaga isii waxa rabaa inaa guursado dabeedna saa darteed waa la soo baxsado saas baa Soomaaliya ku nimidna waqtiga ka hadlaya waqti hore weeyaan waqti fog weeyaan dabeedna cabaar bay aamuseen sheekadii lama sii wadin ana waxaan ka fikiray oo adduunka waxaa jira meelo qof inta ku yimaado koornayo wiilkaaga sii oo xiriir intaa lay ka jirto just markaas waxaan bilaabay inaan plan sameeyo si aan Soomaaliya uga soo dhoofo si aan lifestyle-kayga wax uga bedelo balaankii aan Soomaaliya kaga soo bixi lahaa maalintaas buu igu bilaabmay daadeyduna aad bay qof aan u sheegay iyo qof aan kala tashaday iyo qof aan wax ka weydiiyay haba yaraatay ma jirin just nafteeda waxaan dhahay okay wax inta doontaa kugu qaadato inta wixii rabaa kaaga baxaan waa in aad adduunka tagtid meeshaas si aad noloshaada u noolaatid xorriyad madax bannaan heshid aad nolosha u noolaatid just waqtiga waxaan bilaabay just inaan ku riyoodo maskaxdayda aan habeen iyo maalin ku riyoodo si aan nolosha uga